السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس عباد الله، اتقوا الله تعالى. قال الله تعالى: كل من عليها فان، وقال: كل نفس ذائقة الموت. walaalayaal waa la dhimanaya, waa ognahay, waa wax makhluuqaadkoo dhan uu isku raacsan yahay in la dhimanayo, la arkayo oo indhaha lagu hayo. laakiin al-isticdaad, talageliyada iyo rumaynta way kala duwanta. mu'minku wuxuu rumaysan yahay noloshan inay nolol ka dambayso. noloshan imanka aynu noolahay geeri baa ku xigta, geeridaana nolol baa ka dambaysa. sida aynu markii hore inagoo noolayn ilaahay inoo noolaysiiyey ee haddana inoo dilay ayuu haddana inoo soo noolaysiiyey. al-aslu cadam, la'aanshu ahaa asalku. waxaa horraysay inaynaan jirin, kadib buu ina nooleeyey. inagoo nool buu ina dilayaa, wuu ina soo celinaya, wuu ina noolaynaya. hada huwa aliimaan, hada huwa alislaam. iimaankii islaamnimadu waxayna farayaan baa kaas. walaalayaal, diinteennu say racaayo ugu samaysay nolosheenna, ay inoo xifdiday. hadday naf tahay, hadduu maal yahay, hadduu dal yahay, hadduu diin yahay, hadday ciqdi iyo sharaf iyo karaamo tahay, diinteennu say u ilaalisay, nolosheenna u qaabaysay, ayay geerideennana u qaabaysay. qofka muslimkaa lama dayicin markuu sii dhimanayo iyo markuu dhinto kadibba. mar intaad nooshahay diinteennu way ku ilaalisay. si walbaa wax lagugu sheegay, kor iyo hoos. ilaahay wuu ina dhisay subxaanahu wa tacaala. rasuulkeennuna waa ina toosiyey sala allahu calayh wasalam: wa innaka latahdii ilaa siraatin mustaqiim. jidkii toosnaa ayuu imaam inoogu yahay nabigeennu sala allahu calayh wasalam. markaynu dhibannana xuquuqdeenni hadru ma aha. qofka muuminka xurmadiisii buu leeyahay. intuu adduunka lahaa ee xurmo iyo sharaf iyo karaamo ahayd ayuu leeyahay. saa daraaddeed, marka koobaad waa inaan ogaanno, waan rumaysannahay, ku talagalno inaynu dhimanayno, oon isticdaad kaamila la nimaadno. kullu man calayha faan bu alle. cid kastoo dunidan joogta way ka tegaysaa. waa kullu baa la adeegsaday. macnaha waxaa weeye rasuul iyo kayrkii, kaafir iyo mu'min, caasi iyo caabid, addoonnimada mid qaatay iyo mid diiday way dhimanayaan. kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam. ilaahay baan dhimanayni subxaanahu wa tacaala. wayabqaa wajhu rabbika duljalaali walikraam. ilaahay baa baaqi noqonaya. laakiin cid kasta oo kale magacay doonta ha huwanaato, taatalkay doonta ha sidato, tan way ka tegaysaa. waana dhab, waana arkaynaaba. kullu nafsin dhaa'iqatu lmowt. kullu baa la adeegsaday. naf kasta geeri bay dhadhamin buu alla yidhi subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, maanta mawduuca aan raba inaan yara dul istaagna waxaa weeye, qofka mu'minka diinteennu maxay u diyaarisay markuu dhinto. markaad noolayd sidaa lagu ilaaliyey bay diinteennu ku ilaalisay. markuu qofku xanuunsado waxaa loo sharci ah in la ziyaarto, la soo booqdo,
عيادة المريض مريض كإن لا صوبه قلبك اللي دجيو لوانيو لو شيء إنه طهور يا حنون كان إلهي إنه ذنبك قد عافيه سبحانه وتعالى لحسوسية لقوانيو الوصية والتوبة والاستغفار وحي دردارنا إنه دردار ما لحسوسية قفكم مركو حنون صنايو وحبلا بعد عافيه وإن لقو براروتشيو إنه دردارمو dad bay wax iskugu jiraan dad buu wax ka haya dad baa wax ka haya dad bay tacaamulayeen waxba maqan xuquuqdaas oo dhan soo ilaalin laha dad buu wax la jecel yahay aan hadhow dhaxalka waxba ku yeelanaynin waa in la xasuusiyo alwasiya والتوبة والاستغفار ومركي قفكي وحنون صدبه وإن la xasuusiyo isna oo xasuusnaado dabcan kadib arinku markuu sii adkaado diinteenu waxay inoo sharciyeysay oo nabigeenu sallallahu alayhi wasallam inoo sunneeyay laqinu mawtaakum la ilaha illa allah nabigu sallallahu alayhi wasallam qofka idinka dhimanaya ulqima توحيدك لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قفك كلمة قدام بيسافك سكسوا بعد لا إله إلا الله نقطه شندوا قال يا رسول صلى الله عليه وسلم سين مركة تعالى وقوة قوليستو أي رسولك وقيوم حليه صلى الله عليه وسلم قفك إذن كسر لمن يقول لا قيمة توحيدك لا إله إلا الله ده قفك مشاكل باكو فران حالت kala guuru ku jira waxaan sawiran karna maaha oo nimanka inagu iskaga sheekayn karo dunidan dhan buu ka anbabaxaya biduuni xurriya wax isaga laga weydiinayo oo tashi oo diyaar garow oo tigidkaaga diyaar ma ku yahay arimahaaga diyaar ma aha waa qasab asandullah waad aragtay imanka markaad magaalo u safrayso ama dal kale u safrayso inteed isticdaad samaysaa inteed diyaar garowdaa inteed bari baan baxayaa saadan baan raac baxayaa markaas lagu raacayaa mataarka lagu la tagayaa ehelkaagi ku amba bixinayaan bal adoon dib dambe inaan soo arkaynin ka waran wax xurriyadood u leedahay arrinkan uusan jirin القضاء والقدر باكو ريحي كل باكو ودا كل من عليها فان markaasuu shaytaankuna nabigu sidoo inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam qofkan xaalad adag buu ku jira markuu ilaahay u laqima xaalad adag buu ku jira shaytaankaas oo madax fadhiisanay shaytaankii baa u imanay markaasuu wuxuu xasuusinayaa wax kasta oo qalad ka dhacay kulaahay ilaahay agtiisa naxariis kuma leh kaasad samaysay oo kaasad samay in liiskii buu haystaa waxa la wixii qalad ee dunidan intan shaytaan baa ka dambeeyay haddaan qofka markaa loo laqimin tawxiidka ma bahaleelayaba qofku waa mashquulsan wuxuu ku mashquulsan yahay amba bax uusan xor u ahayn buu amba baxaya oon dib loo soo noqonayn aawe dadkeennii dhintay yaa hadal haya aawe kuwii daaraha magaalada ku lahaa aawe kuwii hantida lahaa maalintaasaa u dambaysa maca asalaam hadduu khayr hormarsadayna daartan ka khayr badan buu u guuray oo tan uu ka nasanaya ummadiisiina way tabaysaa oo ku dhex noolaa oo way u ducaynayaan hadduusan khayr hormarsanina ummaduna way ka nasan isna meel uu eeday oo aashay buu u hoyday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun الله لقيمة يا مركة توحيدك لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالله قل لقيمة واسدة هدي لغو قول يستئينوا كلمة دا كنا واقع وإسدا كقب هذا النبي قال نوح بلغ قال صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنه قف كاس أهل الجنة حسن خاتم أيها لكن من مصائب الدنيا ما أنت واحد شيء وحي تهاي لا تكون أنت بدل يوم كوما كشري بدي منايا توحيد بالله سلا جاري معي إلا ضد إله وفتشي أرنك وضم ويان أنت بدل كوما قفكي وضلعن ونشوجين بقى لا معلومات صدق معلومات أفر معلومات أنتوا لدنا وإنه توحيد كلا إله وفتشيه
أوسن كوما دجلين لقول ده على مر والله أنتوا مركو سوي مير سدبا قل لا إله إلا الله سأصل النبي الله صلى الله عليه وسلم قل لا قمة ودلال وجرمت المسلمين تسوق رمانيا وولا لماذا يكد حيسي مركي كبحضر محال قبرية أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولا الليالي إله سبحانه وتعالى مؤمنين تيين إذا مشغولين إلهي ذكر جيسين إذا كم مشغولين أولادي اللي مالكي اللي نولا شيء أكون مشغولين إلهي ذكر جيسا كم مشغولين إذا سيدا سميسا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون بألم قفك كم مشغولة إلهي ذكر جيسا كم مشغولة أولادي سيا مالكيسا وخسارة الله سبحانه وتعالى خسارة كب الله وانا وبرتاي من كاين تاغن وهلكا markay nafti ka baxday bu khasaarihiisi bilaab وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. إلهي فلا وحنا نسينا وكبحين أنت يدوري قرط النبي صلى الله عليه وسلم هو يدي صحابه ورمال كيمياء مالك ضفتك لي ما تعيشين هذا رسول كلا مالك أنا إن شاء الله ما يا مالك ضفتك لا تعيشين بالنبي صلى الله عليه وسلم حقول تعيشين مالك أبو ما حد كل هذا واحد أربع ستون بالله واحد كله أو واحد أنتي وتشيلي كل بيري إيه واحد حدتي مرض دفنه مذوباتك كل بيسي إيه واحد صدق يستي وإله اكتسابات حكومة واحد كله دك العالم والله ما يابو إننا نحبك هذا بحين إلهي مركب الله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم أنت نجيروا ذين إيمانين كيردوا قارئ ما ورلا الله النبي صلى الله عليه وسلم قلت المامي إن شندوا الجنة أقرب إلى أحدكم النبي صلى الله عليه وسلم كين شندوا وحيقولوا ودهاي كبيه سيال ماذا كبعوا الحرية وأقولوا ودهاي من النبي صلى الله عليه وسلم والنار مثل ذلك نارتنا انت إلا إذن جتا كبعها حرمتها شندوا يا نار تكالبوا معنى واضح بقول رمين دور مايس دقيقة قديه هذا اللي أنا قفكم وشندوا قلب دقيقة قديه هذا حلقين ونار تقلب كباها حرمتها النار في جنة تقبل سادرات بالله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أنت اللي جرد كل من جرد بورا إيمان والله ما هي إنه وحكامه الدينش إنك على التشمس والصبح ورم ملء وحل الدنب وحل الدنب معها مالها وبرقن كي وحل شقتك بالهلوية ركارية ما جرتو ورداية هلوية ركارية ماله أبيه يريد ويكدمتين هلو كارية ماله عروري يربى وتشوفته هلو كارية ماله يريد وقعنتك وهي كله ماله وحاسب كده كون
أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب مركا تمني إيسي مركا ونوضي يقول له ربي غير هداد إيك أدل لهي الله محيسي على الله محاد سمعين الله يقول فأصدق وأكون من الصالحين وحبا الله بحل هذا أن بدك ونكسن ما كم قفك وحلا بها وقف ونكسن صالحين تكمليه قفك قعمت تفضل إما الحلال أنتو تبعاده بحنايا لما حيا صالحين تكمليه دتك صوبا نظيفة إلهي قاعد تستي أيو كمليه ولا لا وعدنتي الكاسين وشوت ودنتي حالة سمينا شرع الإسلام كله قفتي والجد ذلك توحيد كبار الله قبتي ويكبح علي سيدا أبوه نكسب الله ديارنا صدق حجر بالله ما يريا سنوا صدق إلى صدق حجر إلى أكثر من ذلك قف كان ما يريا أنتوا وارك إنه قف كان وباعي إنه ما يريا والله ما يريا والله ما يريا سنتي عم بالله نظيفنا وهذا يصير تجسا إلا ما يرى هذين صورة قال هاي نقف كان أبى جبتي أبى جوجعي نوا الله تيممية الله تيممية هذين صورة قال هاي إلا ما يرى الله تيممية هذين صورة قال تاني إلا ما يرى نسي وانا أكسب الله ما يرى إلى عشان شرب الله ما يرى كرا إلى أكثر من ذلك أنتي صورة قال يكون نقول يسقف كم وسخدي مركورة لما يرى ينوا إلا دياريو وشتي على سوف فريسيو ولا صوت تيريو وعلوش سدنا قعنت لغا بريو بق ساد علوش لغا لأن قفكم مركو دينتو دبد way furmaysaa dareenka dhan baa furan oo xira yani control ma jiro علوش marka la soo fadhiisiyo ee gacanta sida loo mariyo waxa la wixii taagnaa ama dhawaa ama caloosh ku jiray dhawaa saxara ah ama kaadi ah ka imanay isagoo jiifa maya loo maydhmaa adoo kolka la fadhiisiyo ay wax ka imanayaan marka waa in la diyaariyo si fiican loo soo fadhiisiyo si raxmad ku jirta calooshiisa loo mariyo gacanta tartiib ah kadib wixii ku jiray baa ka imanaya loo isjijeeyo maydhista lagu bilaabo loo weysiiyo kadibna loo mayro dhinaca midig laga bilaabo dhinaca bidixna la dambaysiiyo marnana la qaawin maayo marnaba ma banaan laa yajuus cawrada qofka mu'minka xurmadii ay lahayd markuu noolaa bilaa si wanaagsan baa loogu mayray yaa u mayray hadduu yahay rag baa u mayray walibana aqrabadiisa dadka u xiga ayaa u mayray hadday gabar tahayna dumar baa u mayray dad qofkan u xigo ceebtiisa asturi kara oo aan ma aragtay hadduu ka sheekayn uu isbedelay urbu yeeshay sidan uu noqday xaaladiisa qof asturi kara inaan imanka dad markaad nooshahay dad baa ceebtaada asturaya dadna waxa laga yaabaa hadday ceeb kugu helaan inay ku fadeexaynaya marka qof naasix u ah qofkan ayaa u mayray dumar baa u mayray rag waxaa kaloo shareecadeenu banaysay inuu ninku gabadhiisa u mayri karo gabadhuna ay ninkeeda u mayri karto Abu Bakr radiyallahu anhu arda xaaskiisa u mayray waayo labadan baa isku dhawaa markii la noolaa marka inay isu mayraan way fiicanta Aisha radiyallahu anha arda waxay leedahay hadaan intaan garanay maanta aan garan lahaa nabiga ana u mayri lahaa sallallahu alayhi wasallam marka waa isu mayri karaan ilmaha sabiga ah dumarku waa u mayri karaan yar laakiin wixii dadkii waaweynaa sida ay u kala duwan yihiin rag iyo dumarku bay isku mayrayaan qaabka wanaagsan ee qofka la asturayo maradiisii uu ku dhintay isagoo xidhan ayaa gacanta la marinaya hoosta laga marinaya gacanta waxba lagu xidhanaya marnaba la taaban maayo cawradiisa lagu taaban maayo gacan maran waxba la xidhay maradiina waa ka xigtaa haddii marada laga jeexo na mara kale uga waa in lagu dul qabto deena gacantu saa waa in loo tababarto meedka oo seen u mayran lahay ma aha in qaraabadaadii masaajid cid looga doono yaa u mayran la dawarsado ku waari maysi sida dadka qaar baa qofku hadduu go'aan soo dul istaagi karin war sax ma aha waa dhimanaysa halaga dhimanaya qof kastoo jeceshayna waa dhimanaya dadkeena aan mayran oo baran waa cilmi la baro in la barto loo baahay si wanaagsan ayaa loo mayran nadiif كافور بالله مايريا انت سوتشير بالله مايريا markii sida loo diyaariyo ayaa kafantiina markaas la gelinaya ninkan waxay sunaysay marcad nabigana waxa lagu kanfay saddex bo
ومدول بسيديس ودميسترين يا رسول كان لو كان في صلى الله عليه وسلم ما عميت كأن العامية وما أردت مرير شلبيه سو تاغيينو شرفتي او دمايا لو انت تغي مايا سيتي عن وان لو كنفو مريم بدن با لو كان فكره اسراف ما لو غلay dadku waa kala jir weeyeen dadku way kala awood badan yihiin dadkan dhimanaya waa in si fiican mid walba maraya ku haboon qofka ilaahay uu la kulmaya isagoo isa qaba Allah ma yaray umriya aan xidan ayuu tagayaa yaa la geynaya qabriga la geeyay salaada lagu tukanay xadiidku muslim warinayo soo saaray boqol qofkay ku tukadaan oo muuminiina u shafaaca qaadaan ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dambi dhaafay jannadiisa u gelinay aba hurayra xadiidka laga warinayo 40 qofkay ku tukadaan ومؤمنين وشفاعة قال والله شفاعة قاضية أجر بدن أي النبي وكشة صلى الله عليه وسلم قفك جنازة الراعة كنت كده عاصة يعني النبي وحوش وبلغ قاضي بورح لما بورات أجر قوت واحد أجر بدن قفك كنت كده كسر نقدنا بور قفك انتو كنت كده وحكسو عاصر لما بورات وما قفك النبا لغلاه إلى حق بكوله دين تنبا سكوتيس سدا وناكسن لو سكوتيو ولو سفي على الله ما يرق شي وناكسن لو تكدو وإلهي دم داف لو ويديو لأن قبرك الله دغ قبرك الله واسعي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن واسعي إليكو أكو عديدينا الله واسعي لغوي هذا الكبد اللي انت قبرك اللي تشوف حتى واحد كر لو اخريها لما اوغلا ما وناكسن انه markaan dhagax gurayno markaynu sii wadno inta waa la buuqaya kelmad wanaagsan ha lagu hadlo marka qaar oo tawxiid oo kale dhagax marka la isu dhibo la ilaaha illa allah waxa ka wanaagsan wax walba in hoos loo yiraahdo sababtu waa maxay waxa la rabaa inaad waqti isu hesho adigu aad ku sawirato adoo sidan oo kale lagu hoynay laakiin qofka iska mashquulsan oo ma aragtay wax iska qaaday inuu iska soo noqdo oo hebel baa la aasay maya dareen saxaabadu waxay leeyihiin markaan qabriga joogno midkaayo hadduu shibirku madaxa kaga istaago yani uu heli karay khushuucda iyo deganaanshaha iyo qof walba sugu mashquulsan ee naftiisa ugu mashquulsan subhanallah ولكن أساسا لوجو تكني أما إننا لوجو تكني سيدا ونكسب بالتوحيد كله وقبته أنت الحمصنا إن سيدا سال سو زيارته أجر بدن بشريعة كشيكته قفك سو زيارته قفك حمصنا ولكن مسلم كا جنازة قفك الراعي أجر بدن بشريعة سميس وسميس والله شفيع عقاده والله هرجلي جنازة حق دم مريس إرجال لي هاي والله هرجلي إن حق هرا لما ري جنازة ولا دبا سعودو way suganta in laga horeeyo oo dadku ay ka horeeyaan iyadu dambeysana way suganta labadaba waa wax dhacay waxa si qurux badan mar hadii irgal loo yahay irgada lama qadimo wala daba socdaa in la hor socdo oo ilaahay loo bariyo oo ma aragtay nabiguna sallallahu alayhi wasallam marka qabriga la dhigo waa u ducayn jiray midigta loo dhigayaa deedna si fiican baa loo asturaya si ay ciidu ugu gelin marka si fiican loo xiro sidaa wanaagsan inagu sameeyno ayaa ciidi lagu soo deynaya kadibna markiiba laga yaacay maaye ilaahay baa loo baraya waa loo ducaynaya dadka tagayna ilaahay baa la xasuusinaya subhanallah hada huwa diin diinteena islaamku waa taa qabrigaas marka xurmadiisu leh intaas uu dhulka kale qofkaas taako ayaa dhulka kor looga qaadi karaa wax ka badan maya calaamadna waa loo sameyn karaa sida culimadu sheegayaan calaamad lagu garto halka marka lagu aasana waa la soo ziyaaranaya in la soo ziyaartaa sunna nabigeenu habeenimo tagi jiray qubuurta baqiic gali jiray soo ziyaaran jiray jinkaas oo raaci ma sheedaana kaas oo raaci ma waa nolol jacaylka iyo fulinimada baa inoogu wacan oo walaalada u baalkan ku aasa nabigu waa tagi jiray waa soo ziyaaran jiray sallallahu alayhi wasallam taasidu intay soconaysa dadkii laga dhintay xaalkoodu seebo noqonay inay ku dheeraataan ka baqaya
dadka laga dhintay waa loo dardaarmaya waa loo tacsiinaya tacsiin waxay bilaabataa qofku markay naftu ka baxo waxayna socotaa goorta aad u maqasho mar allaala markaad maqasho aad u tacsiin walow bacda xiin haba noqoto waqti kadib walaalka markaad maqashin geeri ku dhacday kugu horeyso aad u tacsiinaysa tacsiin loo fadhiyo gogol loo dhigayo la oranayo waa la laabayaana shariicada islaamka kuma jirto gogol la fidinayo la laabayo iyo kaadi ka siidays iyo waxaan la sheego kullu hada waa bid'a wax jiran dad farfadhiisanayo shaqo tagaynin oo tacsiin sugayana ma jirto qofka waxa loogu tacsiinayaa meheradiisii gaarigiisa oo wada iskuulkiisa oo dhiganay noloshu waa inay sideedii ahaato inta maalinta geeridu dhacdana reerka culays la saari maayo jaarka cuntada u soo karinay sida sunnaha waa sida waqtiga nabiga sallallahu alayhi wasallam xaafada lama culaysin jirin oo qofkii iyo hantida la iska raacin jiray waa loo soo karin jiro jaarka inta iyadoo safaari yaa loo soo diri jiray sida wanaagsan waa sida tacsiin loo fadhiyana ma jirto maragooni ay dumarku xidhanayaan oo tii ma aragtay baashi ma jirto waa shariicadanu sidaa fudud bay ku wadaysaa goortaad aad u maqashan waad ku tukanaysaa haddii magaalada qabrigiisu yahay saaxiibkaa yahay oo maqasho in la aasay waad tegaysaa waad ku tukanaysaa nabigeena sallallahu alayhi wasallam gabadh masaajidka ka shaqayn jirtay ayaa dhimatay bil kadib baa nabiga loo sheegay uu tabay nabigu aaway gabadhii masaajidka ka shaqaynaysa rasuulka ilaahay way dhimatay kadibna waa noo aasnay rasuulku waa ka xumaaday maxaad iigu sheegi weydeen buu nabigu sallallahu itusa qabrigeedii buu tagay rasuulku waa ku tukaday culimadu waxay leeyihiin bil kadib ayaa ahayd xilligu ku tukaday magaaladii baa tagtay walaalka lagu aasay ama qof sheekhaagi ama macallinkaagi ama qof aad jeclay saaxiibka qabrigiisa tagaysa marka aad tagtay baad ku tukanaysaa haddii lagu soo sheegana salaatul ghaib ayaad u tukan kartaa waa sahal hada almawduuc وفدود هاي إسحرحد إيو مريء جوني الله حرام إيو قرية الله فرفريسان وشقدي اللي جت شوقي الله عدلي إيو ضد السوء إيمان إيو ما لا أنت اللي يسوق دقيقة شاه الله صوب إيو ما هو حاسون وما وح أن رات كل هين أو مناكسنين شرع عن الإسلام حياة الدبيعي أنت إني كلا بلقوا مقيه إسلام بقى إذا هذا ودين تو حيتري الله عدلك وهراي بكبرارات الله عدلك وهراي نشيخ أسوم رياض وبرانا سحور إن الله هداي يا كوش يا قاضي لفت هذا بفليت كان دبل غياب إن أتصارن مركا إن شيء كلا أشجعه إن لأويو كرلو أويو مايا لكن المدو نبي أن المدو كده ده إن كيس مركود دنتين المدو وإيمان إيسا قلبنا ومرجونا يا لكن وحن إله الرال كان كوهد لمين النبي صلى الله عليه وسلم وحن إله الرال جلين كوهد لمين ولا المين وأنا المرجون لكن ولا يسكنترول يا أو ما أعرف تقول الله يسلم ماي كمان الله يسكحير ماي وحصلنا شريعة إنه ما أقول إلهي وحنا ودي سرنا كو يصير في عنه ولا هذا يصير في عنه ودنتين إلهي نقدم بسم الله الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك كل الخير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين